waa maalin kale oo weyn oo farxad mudan inaan ka soo qayb gallo bandhigga farshaxanka ee uu qabanayo Madxafka Qaranka Soomaaliyeed. waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha madxafka oo dadaal aad iyo aad u weyn u muujiyey anigoo aad ula socdo duruufta iyo imkaanaadka iyo awoodda uu leeyahay madxafka oo aad u kooban in haddana uu raadiyo dadka hal abuurka leh farshaxanka leh wax sawiri kara aqoonta leh maskaxdoodu ay furan tahay si ay u cabbiraan wax qalbigooda ku jiro aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay markaan arkay hal abuurka dhallinyarada ay samaynayaan dhammaan intay ka qayb qaadatay oo dhan waan u hambalyaynayaa waan bogaadinayaa waxaana rajaynayaa in maskaxdeenna ay ku weynaato in hal abuurka iyo tacbiirka waxa gudaheenna ku jiro ay noo suura gasho inaynu bannaanka u soo saaro aynu bannaanka dhigno waxaa runtii aad ii soo jiitay halku dhegga bandhiggan oo macnihiisu yahay hoy aniga xataa haddii la weydiin lahaa hoy dee wax badan oo meeshan hadda ku qoran runtii ama aan sawirkooda soo arkay ama hal abuurkooda soo arkay iguma soo dhacdeen waa gurigii waa nabaddii waa gogoshii waa biyihii waa deegaankii waa dalkii marka runtii aad iyo aad ay ii qiirogelisay hal abuurka aan arkay ee aad iyo aad u wanaagsan anigu haddii laydhihi lahaa hooy waxaan aad u soo xusuustaa hooy markaan maqlo hooyo haddii ay hooyo jirin xaggee loo soo hoyanayaa marka meeshii loo soo hoyanayey waxa hooyoba loo yidhi waa meeshii loo soo hoyanayey taas waxa aynu muujinaysaa inaynu qadarin weyn u muujinno gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii farshaxankoodana halkan uu ka muuqdo hal abuurkooda halkan uu ka muuqdo iyo hooyada Soomaaliyeed wax badan oo nolosheennii lagu noolaa ahay oo hooyga ahaa oo aqalka ahaa oo sariirtii sadaqa ahayd ee aan soo arkay iyo gogoshii iyo kolaygii iyo salabihii iyo uunsigii iyo fooxii waxa aan soo arkay oo dhan waxa ay ahayd farsamo ay samayso hooyada Soomaaliyeed ayay ahayd waxaan ku boorinayaa oo aan ka codsanayaa hay-adaha dawladda iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo waxgaradka Soomaaliyeedba inay ka faa'iidaystaan aqoontan iyo hal abuurkan sidoo kaleeto in la dhiirigeliyo oo munaasabada loo sameeyo waxaan ka rajaynayaa bahda waxbarashada inay ardayda u soo diraan madxafka u soo diraan da'yarta inay u soo diraan si ay xataa u bartaan taariikhdeennii iyo sooyaalkeennii iyo sidii aynu ku soo barbaarnay oo maanta qaar badan oo ka mida ay iska lumeen ama aan nolosheenna ku jirin aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa maamulka madxafka qaranka Soomaaliyeed haddaanu nahay wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sarena waxaanu ballan qaadaynaa inaanu garab istaagno hal abuurkaas hadba intii awooddeenna ay la ekaato waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa akadeemiyadda dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed oo iyaduna qayb lixaad leh ka qaadatay hal abuurkaas in la dhiirigeliyo sidoo kaleeto wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa farshaxanku waa inoo furan yahay waxaan rajaynayaa insha Allah in
fursad weyn aan u helno inaynu ka faa'iidaysanno waana mahadsantihiin